يتلظى بشعاع بالرمال السافية وجه دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada shabakada haqabeel.com. maanta barnaamijkeena waxaanu kaga hadlaynaa 8 cunto ee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa inuu isticmaalo ama uu cuno. cuntooyinkaasi daawadayaal waxa kamid ah cuntada koowaad malabka. malabku wuxuu ka mid yahay cuntooyinka uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. xadiis laga soo wariyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yiri waxaan idinku ogahay laba dawo quraanka iyo malabka. cilmi baaris la sameeyay ayaa wax lagu ogaaday xanuunada uu daweeyo malabku waxa kamid ah xanuunada ku dhaca caloosha, gaaska, finanka iyo xanuunada beerka iyo waliba hargabka. cuntada labaad saliid saytuuntu waxay kamid tahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. saliid saytuuntu waxay u wanaagsan tahay maqaarka iyo timaha waxayna dib u dhigtaa calaamadaha gabowga. caleenta saytuunta waxaa loo isticmaalaa in lagu daweeyo caabuqa caloosha iyo kansarka maqaarka. cuntada saddexaad cinabka. cinabku wuxuu ka mid yahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. waxa uu nadiifiyaa dhiigga, sidoo kalena cinabku wuxuu sifeeyaa kaliyaha waana xoojiyaa shaqadooda. cuntada afraad waa midhaha bardaha. bardaha ama tiinku inta badan waa la qalajiyaa, waxay leeyihiin dhadhan aad u macaan. daraasado lagu sameeyay midhahan ayaa lagu ogaaday inay leeyihiin faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka ah. waxaana ka mid ah waxay hoos u dhigaan dhiigkarka sababtoo ah waxa ku jirta macdanta potassium-ta loo yaqaano. waxay caawiyaan lumista miisaanka, waxay ka hortagaan kansarka ku dhaca naasaha. intaa waxa dheer midhaha barduhu waxay daweeyaan qaar ka mid ah xanuunada ku dhaca caloosha. qaraha ama xabxabku wuxuu ka mid yahay cuntooyinkii uu nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam, sida uu dhigayo xadiis ay kutubtooda ku soo tabiyeen labada sheekh ee Abu Daawud iyo Tirmidhi. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku cuni jiray xabxabka ama qaraha iyo timirta loo yaqaano radabka. qaraha waxaa lagu qiyaasaa 290% inuu yahay biyo. saasay tahay waxa ku jira macdano kala duwan oo jidhkeenu aanu ka maarmin, sida fiitamiinada Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C iyo Vitamin E iyo fiitamiino kala duwan. waxaa kaloo qaraha ama xabxabka ku jira macdanta potassium-ta oo unug walba oo jidhkeenahi uu u baahan yahay. qaraha ama xabxabku wuxuu yareeyaa halista wadna qabadka iyo unugyada muruqyada oo uu ka ilaaliyo inay gaboobaan. waxa uu wanaajiyaa dheefshiidka, waxa uu ka hortagaa kansarka, waxa uu qooyaa maqaarka iyo timaha. cuntada lixaad caanaha. caanuhu waxay ka mid yihiin cuntooyinka qur-aanka kariimka ah lagu xusay. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inay caanuhu u wanaagsan yihiin qalbiga, sidoo kalena ay xoojiyaan dhabarka, sidoo kalena inay kobciyaan maskaxda, aragga iyo xusuustana u wanaagsan yihiin. cuntada toddobaad waa bocorka. bocorku waa cunto waana daawo qur-aanka kariimka ah lagu sheegay. nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa wuxuuna kula talin jiray asxaabtiisa inay cunaan bocorka, isagoo sheegay inuu bocorku jebiyo tiiraanyada qalbiga. bocorku sidoo kale waa maado keenta hurdo, dejiyana neerfaha, una roon dadka dabeecad ahaan kulul. bocorka biyihiisa haddii madaxa lagu maydho waxa uu daawo ka yahay madax xanuunka. cuntada sideedaad waa timirta. timirtu waxay ka mid tahay cuntooyinkii nabigeenu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. faa'iidooyinka lagu sheegay timirta waxaa ka mid ah waxay socodsiisaa caloosha, waxay sidoo kale u fiican tahay xanuunada ku dhaca sida wadnaha, dhiig la'aanta, shubanka, kansarka ku dhaca mindhicirada caloosha, sidoo kale haweenka uurka leh iyo dhibaatooyinka la xiriira dhinaca taranka. timirta waxaa ku jira dhowr walxood sida fiitamiino iyo macdano. diinteenuna waxay dhiirigelisay isticmaalka midhaha timirta, isagoo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yidhi ma gaajoodo cidda ay gurigooda taalo timiri. waxaana uu xadiiskani markhaati ka yahay ama uu caddaynayaa ahmiyadda ay leedahay timirtu, waana cuntadii ugu jeclaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. waa tahay daawadayaal, barnaamijkaasi aadka muhiimka u ah waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah Fuaad Cabdishiid Aadan, dhinaca kamaraduna waa injineer Maxamed Cabdillah.